بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعنا ونيسان لما باقيارت قيمين تقدرين تأيي أشمد بدن وذا نقل حديداعي هالكن وحرون تقول تلفزيون كغران كسومان وكل يهي نقل هرقيسا وحان اللسو قاريان من تانيسو قدين شرني والوحيد دالك قديس يدافع عالم كان سو قارين وركاسر وحاو ديارة وإذن سعوسين دونا أني وأحمد سقدار حسن قضبضا وركا يقود دور هرون وحاكمدا مدحونا جمهورية الصوماليلاند مدن أحمد محمود سليمان ayaa isagoo ku hadlaya magaciisa iyo ka shacabka Soomaaliland waxa uu taasi u diray qoyskii iyo eladii ay ka baxday Allah u naxariistee marxuumad Faadimo Xaaji Cali oo ku geeriyootay magaalada Hargeysa isla markaana ahayd hooyada dhashay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland guddiga heer qaran ee qabanqaabada xuska 18 May ee fooda lagu soo haysa ayaa iyaguna maanta ka hadlay halka ay u marayaan hawlihii diyaar garowga maalinta xuska 18 May wasiirka wasaaradda hawlaha guud guryeynta iyo gaadiidka ee Soomaaliland ayaa isaguna furay dhismaha dayactirka buundada Lafaruug oo u dhaxaysa magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland ayaa isaguna magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxa uu ka dhigay warshad cusub oo soo saari doonta jeegadaha guryaha lagu dhiso noocyadooda kala duwan wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland oo isaguna maalmihii u dambeeyay Soomaal shaqo ku marayay gobolada bariga Soomaaliland ayaa kulamo kala duwan la qaatay odayaasha iyo waxgaradka ku dhaqan degmada Elfweyn kaas oo kala hadlay mashaariicaha horumarineed ee biyagelinta degmadaasi akhyaarta awooda nagala xidha intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu doorwaran haatan ku soo dhawaada wararkaasi oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Sulaaya ayaa isagoo ku hadlayay magaciisa iyo ka shacabka Soomaaliland waxa uu taasi u diray qoyskii eeladii qaraabadii iyo shacabka Soomaaliland ee ay ka baxday Allah u naxariistee marxuumad Faadimo Xaaji Cali oo ahayd hooyada dhashay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland uu ku geeriyootay habeenkii xalay magaalada Hargeysa laguna aasay taasidan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka soo baxday xafiiska afayeenka madaxtooyada Soomaaliland ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Sulaaya isagoo ku hadlayay magaciisa iyo ka shacabka Soomaaliland waxa uu taasi u dirayaa qoyskii eheladii qaraabadii iyo shacabka Soomaaliland ee ay ka baxday Allah u naxariistee marxuumad hooyo Faadimo Xaaji Cali Xaaji Abukar oo ku geeriyootay magaalada Hargeysa madaxweynuhu waxa uu si gaar ah taasidaasi ugu dirayaa wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland mudane Cali Xuseen Ismaaciil Cali Shombe oo ay marxuumada hooyadii ahayd madaxweynuhu waxa uu marxuumada Allah uga bariyaa inuu naxariistii jannada firdawsa ka waraabiyo qoyskii qaraabadii eheladii iyo shacabka Soomaaliland ee ay ka geeriyootayna uu samiriye iimaan saadiqa ka siiyo wararka nooga imanaya dalka Djibouti ayaa waxa kamid ah dawladda Djibouti ayaa maanta ku wareejisay deeq raashin noocyada kala duwan isugu jira oo ka kooban 42 baabuur guddida abaaraha ee heer qaran ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana deeqdaasi lagula kala wareegay xadka Soomaaliland iyo Djibouti iyada oo dawladda Djibouti u soo wakiilatay wasiirka kalluumaysiga khayraadka badda xoolaha beeraha ee dalka jamhuuriyadda Djibouti caawimada ay soo dirtay wadanka Djibouti ayaa waxa caawimadaasi ka gudoomay guddida abaaraha oo horkacayaan wasiirada kala duwan oo ka socda xukuumadda Soomaaliland sidoo kale wafdigaasi heer qaran ee guddida abaaraha ee ka socday dhinaca Soomaaliland waxa hogaaminayay wasiirka gaashaandhigga ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland intii ay socotay xafladda lagula kala wareegayay deeqdaasi raashinka ah ee dawladda Djibouti u soo dirtay dadka ay abaaruhu tabaaleeyeen ee ku dhaqan galbeedka Soomaaliland ayaa waxa hadal ka soo jeediyay wasiirka waqafta ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Sheikh Khaliil Cabdilaahi Axmed sadaqada reer Djibouti Allah ka aqbalo madaxweyne Ismaaciil Umar Geyle farxad bay maanta weyn bay noo tahay waxa weeyaan magaalada Cabdo xadka Djibouti waxa weey maalin barakeysan waxaan u fadhinaa inta kuleynta iyo sadaqada reer Djibouti ugu horeey madaxweynuhu ay ku soo deeqeen ugu soo deeqeen weelaha tabaalaysan abaaraha Soomaaliland
oo maanta ku wareejinayaan guddiga abaaraha ee heer qaran oo ay ka matalayaan gudoomiye xigeenkii iyo wasiiro iyo xildhibaano iyo hawlwadeenno guddiyada kala duwan ee gobolada u soo xiga dalka Jabuuti ka wada yimi waxaan leenahay maanta waa maalin qiimo leh waa maalin taariikhi ah munaasabadan weyn ee qaaliga ee la iskugu yimid halkani aad iyo aad yaan ugu faraxsanahay wasiir haday yihiin xildhibaano labada dhinac ka socda haday yihiin guddida dekreetada lagu magacaabay ee abaarta ee Somaliland waxay noo sheegayeen ina xoolihii 2 milyan hay maanta ku qorbaxeen annakoo darisa isku duuba isku dhiiga uliya diirkeed ana waa inaan daanakuna waajibkayga geysanaa waajibkii muslimnimada waajibkii darisnimada waajibkii dad afqura ku wada hadla iyaan danahayo inkastoo la yidhi waa dib u dhac baa samayseen horta xaggiinana diiwaangelin baa ka jirtay xagga iyagana doorashaa ka jirtay waxyaalo kale oo ayaguna duruuf iyo noo yimidna way jiraan waxaa isna sidoo kale munaasabadaasi ka hadlay wasiirka gaashaandhigga jamhuuriyadda Somaliland qofku markuu sariix yahay wixii ku jiray sheegto markaas walaalnimadu dhawowda Ismaaciil Umar geelle soo baxay oo madaxweyne noqday waxaanu qabnaa cidla kuma maqneen Jabuuti hawl bay ku jirtay hawsha annaguna xaggaas qalbigaanu kala jiray markaanu Somaliland joognay qof haliyay ah oo wax muujiyay runtii oo dalkiisa hagaajay isaga cid kalena wax tari kara marka sidaa intaasu halagu ilaawo mar dambe yaa dib u dhaca soo anagu waa ilowna hadda idinku soo qaadina maxamed jaamac waale telefishinka qaranka Somaliland xadka Somaliland iyo Djibouti guddida heer qaran ee qabanqaabada xuska 18 May ee fooda inagu soo haysta ayaa shir jaraa'id oo maanta ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxa ay kaga warameen halka ay hawlahaasi u marayaan warkaasina waxa loo diyaariyay oo looga qayb galay wariyayga Xasan Maxamed Muuse guddida heer qaran ee qabanqaabada xuska qaran ee 18 May sanadkan 2016 oo kulan warbaahineed ku qabtay xarunta xisaabiyaha guud ee qaranka Somaliland ayaa waxa ay faahfaahin dheeraad ah kaga bixiyeen habka iyo hanaanka kala duwan ee loogu diyaar garoobay xuska qaran ee 18 May iyaga oo halkaasi ku soo bandhigay oo loo qaatay sanadkan halkudhaga Somaliland guul qaran iyo qaayl lagu gaadhay rubuc qarnigii xubnaha guddida qabanqaabada xuska qaran ee 18 May oo ay kamid ahaayeen wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka wacyigelinta jamhuuriyadda Somaliland wasiirka wasaaradda maaliyadda Somaliland iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda Somaliland iyo xubno kale kamid ah golaha wasiirada iyo sidoo kale ururada arrimaha bulshada ayaa faahfaahin dheeraad ah waxay ka bixiyeen arinta ay xil saaran yihiin ee ah qabanqaabada xuska qaran ee 18 May ugu horeyn wasiirka wasaaradda maaliyadda Somaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan oo kamid ah xubnaha guddidaasi ayaa ka warantay xuska qaran ee 18 May iyo marxaladii kala duwan ee uu soo maray qaranka Somaliland hamiga dheer ee shacabka Somaliland ay higsanayaan iyo sidoo kale halkudhaga sanadkan loo qaatay xuska qaran ee 18 May Somaliland waxay 25 jirsatay sanadkan waxay waa garnaqsi bay wadaa waxay intii hore ay Somaliland ku mashquul ahayd inay wadan burburay ee dagaaladu ka dhaceen ee dadku ka qaxeen ee dhibaatadu ku dhacday sidii uu ugu soo noqon lahaa wadan caadi ah oo wadamada adduunka la tartama oo wax qabsada tijaabadii u dambeysay waxay abaarihii inagu dhacay ee abaaraha caynkaas markay ku dhacaan meel adduunka oo dhan u soo gurmado inaynu inaku isku gurmanay oo wax ka qabanay oo markii adduunku arkay inaynu wax ka qabanay ay waxa halkudhag u ah oo sanadkan 18 May halkudhageegu yahay Somaliland wula qaran iyo qaay lagu gaad qarni rubici waa qarni rubici halkudhagaas sanadkan la qaadanaya halkudhaga ficil baa la raacinaya wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Somaliland mudane Cismaan Cabdilaahi Saxardid Cadaani oo halkaasi ka hadlay ayaa sharaxaad guud ka bixiyay hanaanka habboon ee higsiga leh ee loo hindisay xuska qaran ee 18 May oo 25 guuradii ka soo wareegtay 1991 markii qaranka Somaliland idibada loo taagay waxaan ugu baaqaynaa haddaan nahay guddida maxaan ku raadayay 18 May dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda Somaliland ee gudaha iyo dibadda in si ay ku dheehan tahay xamaasad iyo shucuur wadaninimo
aan maalintaa u soo bandhigno dareenkeenna weligeen aynu lahayn ee laynagu yaqaanay caalamka intiisa kalena aynu tusno indhahooda xaqiiqda dhabta ah ee ka turjumaysa doonisteenna waa inaynu miyi magaalo tuulo iyo dibaddaba maalintaa aynu isugu soo baxnaa ciroole caruur iyo dhallinyarada rag iyo haweenba goobaha xuska inagoo wada ilaalinayna nabadgelyadeenna ammaankeenna dalka iyo nidaamka xuska aynaana u kala hadhin geeska kale halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland mudane Axmed Faarax Cadarre waxaanu bulshada reer Soomaaliland kula dardaarmay inay muujiyaan feejignaan ficil ku dheehan yahay iyadoo hay'adihii qaranku guud ahaanba ay u diyaar yihiin haddana waxay u baahan tahay xoojinta shacabka madaqada lagu xeeran waxa la socotaan waxyaabaha ku xeeran ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala inaga nabadgeliyay iskaashiga ummadda inaga nabadgeliyay qofka dariiqa maraya ee soo jeeda ee arkaya ee qaylinaya ee ogbaad ay mooyaan waxaan leenahay amniga aad iyo aad looga taxadiro maxamed muuse abees wasiiru dowlaha wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland ayaa isaguna waxa uu si gaar ah ula dardaarmay dhalinyarada reer Soomaaliland maadaama ay dhalinyaradu yihiin xuduudda dal walba ku faano isaga oo u soo jeediyay in ay muujiyaan xuduud laxadle Mustafa Saad Dimbiil oo ah gudoomiyaha dalada Soonsaf isla markaasina ku hadlayay afka ururada bulshada ee kamid ah xubnaha guddida qabanqaabada xuska qaran ee 18 May ayaa halkaasi ka hadlay isaguna waxa uu dardaaran u diray guud ahaan bulshada reer Soomaaliland wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland ayaa maanta magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxa uu ka dhagax dhigay warshad cusub oo soo saari doonta shirkadaha guryaha lagu dhiso noocyadooda kala duwan sida uu sheegayo waryaha Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud oo warka looga soo diray magaalada Berbera wasiirka warshadaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay weheliyaan gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo mareeyaha dekedda Berbera ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay warshad soo saari doonta jiingadaha noocyadooda kala duwan taas oo ay hirgelinayso shirkadda Ominco munaasabad loo sameeyay dhagaxdhiga warshadaasi cusub ee sameyn doonta jiingadaha ayaa halkaasi ugu horeyn waxa hadal ka soo jeediyay mareeyaha guud ee shirkadda Ominco Maxamed Cali Maxamed iyo sidoo kale Yuusuf Raage oo isaguna ku hadlayay afka shirkadaasi waxaana ka waramay shirkaddan iyo waxyaabaha kala duwan ee ay soo saari doonto National Steel Industry waxay ku shaqo leedahay inay soo saarto wixii bir ah ee loo baahan yahay for example wajiga face-ka hore waxay soo saari doontaa noocyada kala duwan ee jiingada haddii ay tahay karfudo iyo ta adagba ama nooca lagu dhiso xeebaha ama nooca lagu dhiso dhulka qaboobaha face-ka labaad waxay soo saari doontaa for example masaabiirta oo kale kaariyoonayaasha sheetiska angaliska U-shape-ka dhammaan wixii bari ee loo baahan yahay insha Allah future haddii aan helaa waxaase maanta aynu dhagax dhigayno ee maanta aynu xafadeeda u fadhino waxay tahay dhagax dhigga warshada cusub ee soo saari doonta jiingada xagga warshadaynta markaan ka hadlayno waddankeenu wuxuu u baahan yahay horumarkiisu wuxuu u baahan yahay warshadeyn sideeda horumarku waa warshadeyn weyn warshadayntu waxay markaa lafdhabar u tahay inuu dhaqaalo kobco inay farsamadu korodho waa farsamo adduunku waa farsamo wax kasta oo maxaan ku dhahdaa horumarkeena waa farsamo haddii ay markaa farsamada kobocdo aqoonta farsamada kobocdo waxaa ogaala in ay shaqo abuur ku badanayo in ay wax soo saar ku badanayo anaguna taas baan iminka saarayna xoogga inaynu abuurno fursadihii mareeyaha guud ee dekedda Berbera injineer Cali Cumar Maxamed Cali Xoor iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed ayaa iyaguna dhankooda si weyn u soo dhaweeyay shirkadaasi soo saari doonta jiingadaha ee ay hirgelinayso shirkadda wadaniga ah ee Ominco waxaana ay sheegeen inay muhiim tahay mar walba la maalgashado dalka hooyo sanadaan lahay maamulka reer Saaxil iyo reer Soomaaliland bay dawladda oo ka gudoonay heerka ka sii wad wax khasaaro kaaga imanaya ma jiro insha Allah wax horumar far badan oo dadka dhalinyarada ah iyo reer Soomaaliland ba iyo magacba magacyo manfaco yeelanaysaa dadka kale reer Soomaaliland oo ganacsatada ana waxa ku dhiiranayaa waxa leeyahay waa waddanka wax soo saarka raashi badeecadu waxa soo xambaaray dawladda halkana wax badan lagu qaban karayaa dadka ka faa'iideysto farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaan baa uga faa'iideysto halgeli weeyaaga bahashe arrintan waxa uu tahay waa laftabarta Soomaaliland oo tahay
ciyaalkeenna badaa ku tahriibaya ayay shaqo abuur u tahay maanta haddaan 10 warshadood noocaas leenahay waxa laga yaabaa in dhalinyarteenu tahriibteen ganacsatada waaweyn waxaa ku dhiirigelinayaa inay iska daayaan badeecadaha ay ku keenayaan dibadaha ay ku dadaalaan nin walba siduu warshadda u soo kordhin lahaa gabagabadii waxaa isaguna halkaasi hadal ka soo jeediyey wasiirka warshadaha dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland Shucayb Maxamed Muuse oo si weyn u soo dhaweeyay warshadaasi cusub ee jiingadaha samayn doonta isagoo sheegay inay dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku soo badanayaan maalgashiga ay sameynayaan ganacsatada kala duwan ee dalku waa maalin runtii farxad leh oo qiimo leh injineerka ayaa runtii ka sheegay maareeyaha ahmiyadda ay warshaduhu waddankeena u leeyihiin dal wuxuu ka horumaraya wax weeye waa horumarinta dhinaca warshadaha haddii warshadaha la horumariyo dalka la aamino sidan oo kale loo sameeyo warshadayntan laaleeg waxaa imanaya shaqo abuur waxaa imanaya dhaqaalaha waddanka kor u kaca waxaa imanaya camiraad wax badan baa runtii laga faa'iideeyay waan ku ammaanaynaa runtii cid kasta oo ka dambeysay fikirka warshada inay keento oo dhalinyarta iyo cid kasta oo maaragtay Soomaaliland maanta ay shaqo ka helayso intii ilaahay u qoray mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera wasiirka wasaaradda hawlaha guud-guryeynta iyo gaadiidka Soomaaliland ayaa isaguna furay dhismaha dayactirka buundada deegaanka Lafuruga u dhaxaysa magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera faafahinta warkaasi waxaa loo soo diray wariyaha Ridwaan Caydiid Ismaaciil wasiirka hawlaha guud-guryeynta iyo gaadiidka Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed Cali Marreexaan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa hawlgal shaqo ugu socdaalay gobolada bariga Soomaaliland kaasoo ujeedadiisu ahayd u kurgelidda xaaladda wadooyinka Soomaaliland ee gobolada bariga ay ku sugan yihiin dhismaha iyo dayactirka buundada Lafuruga oo dhan 120 mitir oo isku wareega oo ay hirgelisay xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda hawlaha guud-guryeynta iyo gaadiidka oo la dhameystiray ayuu wasiirku xariga ka jaray Saciid Maxamed oo ku hadlay magaca shirkadda Warsame Saciid ee hirgelisay dhismahan ayaa tafaasiil ka bixiyay shaqada buundada laga qabtay Lafuruga bridge oo 120 mitir isku wareeg go'aan muddo 4 bilood ka shaqeynay waad aragtaan waxaan u sameynay gebinkii protectionka ah hoosta in aad u daadku gooyay haad kaliya tahay maanta waa tan baabuurta caadooda marayaan biyihii way soo mareen gebinkani protection buu yahay biriga hore muu ahaan jirin imika laakiin wuxuu yahay in uu ka hortago daadka badan ee soo maraya meesha maareeyaha wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland Professor Xasan Cali Cismaan ayaa sharaxaad ka bixiyay dhismahan iyo faa'iidada uu leeyahay isku socodka magaalooyinka Soomaaliland wuxuuna ka warramay shaqada ballaaran ee ay ka qabteen wakaalad ahaan iyo wasaarad ahaanba roobkii ka horeeyay ayay ahayd runtii way hayeen qolada saxaafadda sawirkeedii ayaa waxa go'ay haad ka mid ah dadka jidka oo biyaha raaciyay go'aan baynu gaadhnay markaas inaynu dooxaa samayno oo aynu maxaan ku rahdaa kabno balilah alxamd maanta wuu inoo kaban yahay 120 mitir ee square mitir ee inaga go'ay maanta way naga dhan yihiin gebinkii protectionka loogu talagalayna wuu samaysan yahay wasiirka hawlaha guud-guryeynta iyo gaadiidka Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed Cali Marreexaan ayaa si qoto dheer uga warramay siyaasadda dayactirka iyo dhismaha buundooyinka iyo jidadka dalka ee xukuumadda uu hogaamiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay wado isagoo bulshada reer Soomaaliland wasiirku ugu baaqay inay ilaaliyaan hantida qaranka ee la wada leeyahay ee loo hirgeliyay Irish crossing oo shub aad u adag ah oo dhererkiisuna inta dintay ahayd 120 mitir maanta dib u habeyntiisa ay soo dhamaatay oo isagoo adag oo dib loo habeeyay oo la dhisay maanta baabuurtii marayso isticmaalayso oo aynu furayno waxaan uga mahad celinayaa shirkadda Warsame Saciid Company oo dib u dhistay oo hawsha si fiican u hayr la'aan u filisay qaybta shubka oo wadada hoosta laga bayska aad looga soo adkeeyay iyo qaybtan kale gabyanka oo taarka lagu xidhay biyo ka dhacayaan dooxyadan had iyo jeer Irish crossing ah ay biyo dul maraan waxa jira baabuur iska rogooyin oo ciid ka gura ciidaas khasaare weyn bay geynaysaa marka ciidda dhinaca ay biyo ka dhacaan laga qaado ama dooxa hariis laga qaado uu qodmaya si fudud buu u jabaya waa waxyaabaha ugu badan ee dooxyadeena iyo biriishadina dhaawac soo gaarsiiyay ciidda laga gurayo hareeraheeda iska rogooyinka iyo dadka wataba waanu xidhaynaa ee aanu ku aragno
ha ka fogaadaan waayo khasaaraha ay geysanayaan iyo waxay ka qaadayaan aad iyo aad buu kala weyn biriijyada lacagta lagu dhisay ma qiyaasi kara sida iyo buundooyinka qof lowr ciida qaadanaya oo 100 meelood kale ka helaya inuu intuu yimaado dabeedna khasaaraha inuu geysto wax la aqbali karayo ma ku jooga iyo ciidamada booliiska in la ilaaliyo taarkan gabiinka ah dhagaxa ku xidhan adag dad baa jira habeenkii ku soo googooya kuwaana waa dambiilayaal waxaasu dhacaan dadkuna wax soo sheegaan gaadhna ka hayaan wadada iyo dhismayaashana hal la ilaashado wasiirka hawlaha guud guriyeentii gaadiidka Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed iyo wafdiga uu hogaaminaya waxay goobgoob u istaageen buundooyinka iyo jidadka isku xidha magaalo xeebeedda Berbera iyo caasimadda Hargeysa 120 mitir oo isku wareega dhagax adag la dhigay buundadan oo ahmiyad badan ugu fadhida baabuurta u kala goosha magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa Rudwaan Caydiid Ismaaciil Akiid iyo Khadar Abiib Cismaan telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland deegaanka La Faruuq isla wararka waftiga uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland ayaan wali ku guda jirnay warkana waxa loo soo diray waryaha Cabdiraxmaan Muuse Omar oo loola socda waftigaasi uu hogaaminayo wasiirka biyaha Soomaaliland ee Soomaaliya shaqo ku maraya gobolada bariga Soomaaliland بدنا وسير ciidankii qaranka oo idin soo dhaweynaya adiga waftigaaga salaamo baan idin soo dhawaada gobolka Soolo dhanmaan wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland mudane Baashe Cali Jaamac oo socdaal shaqo ku marayay maalmihii ugu dambeeyay gobolada bariga Soomaaliland ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay xarunta degmada Xudun kadib markii duleedka koonfureed ee magaalada Xudun uu salaan sharaf kaga qaatay ciidanka qaranka Soomaaliland loona soo galbiyay halkaasi munaasabad ballaaran oo lagu qabtay xarunta dawladda hoose oo guud ahaan dadweynaha deegaankaasi ay ka soo qayb galeen hadallo soo dhaweyn xog waran iyo mahadnaq iskugu jira wasiirka halkaasi uga jeediyay Chief Caaqil Maxamed Askar Jaamac Chief Caaqil Cabdirasaaq Maxamed Xasan odayaasha waxgaradka maayarka magaalada Xudun haweenka iyo dhalinyarada deegaankaasi waxaana dhamaantood ay ka warameen xaaladda dad iyo dunyo ee deegaankaasi siyaasadnimadaada aqoontaada midnimadaada intaba kalsooni weyn ayaan ku qabnaa wixii xaq aan u leenahay ama wixii aan mudannahay nin garan kara ayaa tahay nin geli kara arrimaha iyaga oo dhan waa tahay nin wixii uu soo garto aan ku go'nana waa tahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maatinkaaga waxaan hadda u soo kacay waxay u muuqataa degmada Xudun inay go'i doonto oo meel loo soo mar la waayi doono waxaa loo baahan yahay in lagu talagalo sidii wadada loo samayn lahaa waa waxa kaliya aan ugu cadibanahay hadaan ay degmada Xudun biyo macaan marka abaartu dhacana waxay nagu noqotaa ceelasho dhamadhane maqama cabi kartid xildhibaan Saleebaan Yuusuf Cali Koore oo mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland kamid ah ayaa isna halkaasi hadallo mahadnaq duruxul iyo dardaaran xambaarsanaa uga jeediyay dadweynaha wafdiga ku soo dhaweeyay magaalada Xudun deegaanada aynu ka soo jeedno fiqi fuliye iyo kulaal oo kale oo dhaamam aan hore looga arag Soomaaliland laga fulin doono oo aad garan karaysaan inay waxtarka ay inoo tahay guud ahaan taladuna waxay ku fiican tahay ninkii dadkiisu taageersan yahay oo sidaa maanta halkan oo kale ay inoo caddaynayso uu ninka siyaasigii baakab iyo dad ka dambeeya haysto wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland mudane Baashe Cali Jaamac ayaa dadweynaha uga mahad celiyay soo dhaweynta ballaaran ee ay u sameeyeen wafdigan uu hogaaminayo kaasi oo ujeedada socdaalkiisa ku tilmaamay inuu la xiriiro arrimaha biyaha ayaa wax hadaladiisii ka mid ahaa ama laga bilaabayo xagga biyaha ku saabsan inaan laasacaanoodna laba habeen joogo xagga ceergaaban laba habeen joogo waan ku raagnay laasacaanood waxaan la kulannay dadkii aad beelaha lagu tiriyo mucaaradka xagga Soomaaliland beesha ugu weynaa xaggan lagaga tiriyaa nugaasha waa beesha aan anigu ka soo jeedin ka soo jeedaan laasacaanoodna wax weyn bay ka muujeen iyagoo iskuba duuban dadkii reer laasacaanood maanta kubaddu xagga Soomaaliland bay jirtaa haddii lagu marmarsoonayay dadkanu ma ogolo waxba maanta way muujiyeen inay ogol yihiin waxaan ballan qaadaynaa haddana dawladdu way u soo jeedaa
sida ay halkan uga bilaabeen baa meelo kaloo fara badanna looga bilaabayaa gobol idinka dambeeyaa jiro isagana aan weli xitaa laga samaynin haysima region oo isna xaggan oo isla degaankiina ama beeshiina weli looma gudbin marka xudun laga gudbaa la yidhi baa xaggaana loo gudbi karaa oo dee kuwa ka horeeya wax loo qabto marka waxqabadka xagga dawladda rajo weyn baa ka jira waxaan kaloo idiin sheegayaa dadka reer xudun baan u sheegayaa waynaga fog tahay dawladdu wararkana saynu u kala helaa waa adagta waxaynoo kala yimaadaana waa warar laysu dusdusiyo xagga dhinaca galbeedka somalilan iyo meesha aynu maraynaa way kala fog tahay tareen dheeraynaya xaggaa laga saaran yahayoo laleeyahay food ha la sameeyo cod ha la qabto cod baa lagu kala baxa qabiilkii iyo beeshiiba waa laga tegey tareenkaas sidaynu ula qabsan lahayn codayn iyo diiwaangelin baa soo socotee codkeenna aan ku talagalno codkeenna inaynu intaynu isdiiwaan gelinno wax ku goosanno oo xildhibaanadiina aad la soo baxdaan madaxweynaha doontaana aad ku doorataan gacantiina iyo fartiina waxaan u soconnaa mashruucii hadda ceelaf weyn waxaan u soo marray oo noogu muhiimsan mashruucii ceelaf weyn siday biyo u heli lahayd bini aadamku ka cabbi karo oo looga soo jiidi doono ilad mashruucaas sidii loo bilaabi lahaa mashruucaas sidii aan u daahfuri lahayn u bilaabi lahayn ayaan u soconnaa iyo sidii degaanku iyo annaga iyo degmada iyo reer ilabeed iyo gobolku qorshe uga samaysan lahaa sidii mashruuca loo bilaabi lahaa socdaalkan wasiirka wasaaradda biyaha somalilan mudane baashe cali jaamac uu ku yimi degmada xudun ayaa noqonaya socdaalkii labaad ee uu ku yimaado iyada oo socdaalkii ka horreeyey uu ahaa sannadkii kii wakhtigaasi oo uu ka mid ahaa dawladdii ama xukuumaddii marxuun cigaal cabdiraxmaan muuse tv-ga qaranka degmada xudun gudoomiyaha gobolka saaxil ayaa magacaabay guddida heer gobol ee qabanqaabada xuska 18 May warka waxaa loo soo diray wariyaha Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamed gudoomiyaha gobolka saaxil jaamac yuusuf axmed uu weheliyo xokiyaha xafiiska gobolka saaxil ayaa maanta si wadajir ugu dhawaaqay guddida qabanqaabada heer gobol ee munaasabadda 18 May gudoomiyaha gobolka saaxil jaamac yuusuf axmed oo arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisii waxaa ka mid ahaa waxaan ku dhawaaqnay guddida qabanqaabada 18 May waxaan dadweynaha shirarta leh ka codsanayaa gobolka saaxil in maanta laga bilaabo loo diyaargaroobi doono lagana howlgeli doono sidii loogu diyaargaroobi lahaa maalintaa weyn ee 18 May dadweynaha shirarta leh ee gobolka saaxil gaar ahaan berbera waxaan u sheegayaa ganacsatada hay-adaha dowladda inji-ooyada lookalka ah hay-adaha kale ee madaxa samafalka ee jooga in xafiis walba iyo meherad kasta laga hortaago 1 bisha wixii ka dambeeya waxaa isaguna sidoo kale halkaasi ka sheegay magacyada xubnaha qabanqaabada munaasabadaasi 18 May xokiyaha gobolka saaxil Ibraahim Cabdi Ogle haddaba guddida howlgelaysa ee fulinaysa hawsha la rabo inay gudato waajibaadka loo xil saaray waa guddi hoosaadkan oo ah magacyadoodu Cabdi Ibraahim Ogle xogayaha gobolka saaxil عمر أبو بكر مارية كحييك دكدة عبد الرحمن عبد الكريم آل العدد خويا دولة الروسية بربلة عبد الله ياسين يسدوها قرشيته فاطمة علي فوبلة ويسدوها الدجانكة إبراهيم دجالة ويسدوها وزارة الوخبرشرة عائشة هنداء ويسدوها هيئة سمافلك قاسة يا عبد السلام حرير ويسدوها وفافلك القبر يتاسو حويه وهوضياشة هوضيننا كهوضيرية هوشا لو إساري ولو إبنري
cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka somalilan berbera mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud radio hargeysa berbera cabdiraxmaan muuse cumar oo ka tirsan telefishinka qaranka somalilan islamarkaana la socda waftiga uu hogaaminaya wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha ee somalilan oo sadaal shaqo ku maraya gobolada bariga somalilan ayaa warka looga soo diray. ciyaartaasi jaanbeert waxa ay ka mid ahayd jawiga soo dhoweynta wafdiga wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha somalilan oo si diiran lagu soo dhoweeyey magaalada Orbogees. mas-uuliyiinta odayaasha iyo waxgaradka ayaa kelmado ay ku soo dhoweynayaan xubnaha wafdiga halkaasi ka jeediyey kana warramay sida ay ugu faraxsan yihiin wafdigan ballaadhan ee socdaalka ku maraya deegaankaasi. wasiirka wasaaradda biyaha somalilan mudane baashe cali jaamac oo halkaasi dadweynaha Orbogees kala hadlay ayaa soo dhoweyntaasi uga mahad celiyey ugana warramay ujeedada wafdigani uu socdo. geesta kale wasiirku waxa uu kormeer ballaaran ku soo maray ceelasha biyaha Orbogees kaasi oo maamulka ceelashaasi warbixin ku saabsan xaaladda ceelasha ka dhageystay iyo baahidu ka jirta halkaasiba waxaana uu ka warramay baahida halkaasi ka jirta wasaarad ahaan waxyaabaha ay ka qaban doonaan mustaqbalka dhow. dhinaca kalena odayaasha waxgaradka iyo dadweynaha deegaanada kulaal iyo dararweyne ayaa iyaguna deegaanadaasi wafdiga wasiirka si ballaadhan ugu soo dhoweeyey waxaana ay uga xog warrameen xaaladda dad iyo duuyo ee xilligan ka jirta deegaanadaasi. waxaana wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha somalilan mudane baashe cali jaamac uu uga mahad celiyey dhammaanba deegaanadaasi sida diiran ee ugu soo dhoweeyeen deegaanadaasi iyo warbixinta ay ka siiyeen xaaladda dad iyo duuyo ee haatan ka jirta deegaanadaasi. waxaana uu sheegay wasaarad ahaan in dhinaca biyaha wax badan ay ka qaban doonaan inta awoodooda wixii kale ee ka baxsan dhinaca wasaaraddana ay u gudbin doonaan xukuumadda somalilan. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan ayaa isaguna ka qayb galay munaasabad sagootina oo loo sameeyey ardayda sanadkan ka qalin jabinaysa dugsiga sare ee Gandi. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada somalilan mudane yuusuf cismaan garas oo halkaasi hadal dheer ka jeediyey ayaa ardayda ku gubaabiyey kulana dardaarmay inaanay waxbarashadu halkaasi ku dhammaanin balse ay hadda uun galeen albaabkeedii u horreeyey. hadalladiisina waxaa ka mid ahaa ardayda 990 ardaya ee ka baxaysa koonfurka ee u fadhiisanaya imtixaanka shahadiga ka baxaya dugsiga Gandi inuu yahay wadayo secondary school inuu ka murug wanaagsanaado inuu grades ugu sareeyo one day because qofka aad soo jeedo waxa aad siday dugsiga محمد العلي وقول الله توسي كروضة مقعد فرق مرة صورة يعني الشخصيات دي قصة تناوى برشاد الدولة سمته أهل التكوين كانوا يجيسوا بالبالية بقى يجيسوا على البعية سكول كيادتي نوع وعلى الغفرة على الدولة سكول هير البلد هو يشهر البلد ويتحدون waxay ku kala duwan tahay magaca aad وبراندي waxaa ku kala duwanaya waxbarashada dalka gaalmaha isugu noqon meel kasta oo qalabkii ku soo gaadaan uu soo qaado cilmigiisa ku shakhsi dadban iyo saxoosan markaanooda arday ka suntan ka dhex qaada iskoolka ku guulaystay iskoolka dalka ku guulaysta aqoonyahanka dalka ee ardayda dugsiyada sare ku guulaysta biladaha kale ee la bixinayo ee loo tartamayo maamulaha dugsiga sare ee Gandi
mudane axmed xaashi faarax oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay wakhtiga ardaynimadu iyo sidoo loogu baahan yahay inay ardaydu si fiican uga faa'iidaystaan xilliga dhallinyarnimada isla markaana ka fogaadaan tahriibka haleekeeyey ardayda ka baxda dugsiyada iyo jaamacadaha dalka waxaanu yidhi ardayda maanta xafladda isugu timid arday ayaa rumaantii soo qabanqaabisay in badan u soo dadaashay waxaa laga yaabaa inteeda magaalada ardayda qaarkood inaanu ognayn waxaa weeyaan ragga waa aqribeen ama waa aqbato waa laas waxa weeyaan kalsuulaan qofkii xafladda qurxiyey qofkii dadaala yimaada waxa weeyaan naftiisa u qurxiyo waa furooya waxaa sidoo kale iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka tirsan agaasimo waaxeedyada wasaaradda waxbarashada oo dhammaantood iska daba maray ardaydu ay ka fogaadaan islamarkaana iska ilaaliyaan ka boqoolidda dalka laga boqoolayo si aanay ugu dhiman bay yidhaahdeen badaha ay ku dhammaadeen dhalinyarteennii wasiir-ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka somalilan mudane xasan daahir dhimbiil ayaa kula dardaarmay ardayda inay ka fogaadaan musiibada tahriibka iyada oo dhowaan dhallinyar aad u badan ay ku mandheen badda waxaanu kula dardaarmay ardayda inay ku dadaalaan waxbarashada iyo sida ay dalkooda u horumarin lahaayeen qaar ka mid a ardayda dugsigaasi sare ee gaandi ayaa iyaguna halkaasi ku soo bandhigay masraxiyad ka tarjumaysa qiimahay waxbarashadu leedahay iyo cawaaqib xumada ka dhalata tahriibka ay dhallinyartu baryahan damban ku dhaqaaqeen maxamed xaashi cilmi oo ka tirsan siyaasiyiinta rugcadaaga ee reer somalilan oo isaguna halkaasi hadal ka jeediyey ayaa ka sheekeeyey taariikhda waxbarashadu ay soo martay iyo in jiilka maanta jooga uu ka nasiib badan yahay jiilkii hore waxaanu intaa maxamed xaashi ku daray in aqoon-yahanka loogu magac daray iskuulkan oo ah yuusuf ismaaciil samater gandi uu ka mid ahaa aasaasayaashii waxbarashada somalilan islamarkaana ay habboon tahay in taariikhdiisa la barto waxaa iyaguna halkaa ka hadlay qaar ka tirsan madaxda jaamacadaha gaarka loo leeyahay oo dhammaantood ardayda kula dardaarmay inay wakhtiga ka faa'iidaystaan kana dheeraadaan inay naftooda halaagaan qaar ka mid ah haweenka Soomaaliland ee ku dhaqan dalalka New Zealand iyo Denmark ayaa deeqan lacageed oo kala duwan oo ay kaga qayb qaadanayaan xaaladda abaaraha ee dalka ka jirta waxay soo gaarsiiyeen dadka abaaruhu ay ku dhifteen ee Soomaaliland faafahinta warkaasi waxay noo haya Salebaan Haybe Ahmed Sheekh Cabdiqaadir Xaaji Jaamac oo ka mid ah culimada waaweyn ee dalka Soomaaliland oo deeqdaasi soo gaadhay ka hadlay ayaa waxa uu xusay 5 haweena oo u dhashay Jamhuuriyadda Soomaaliland in afar ka mid ah oo ku nool waddanka New Zealand ay soo gaarsiiyeen deeqdani lacagta dhinaca kale waxa xusay gabar ka mid ah jaaliyadda reer Soomaaliya waddanka Denmark oo iyana soo dirtay qadar lacag u tala gashay dadka abaaruhu ay saameeyeen in lagu caawiyo Sheekh Cabdiqaadir Xaaji Jaamac waa xusay in lacagtaasi ay bulshada ugu qaban doonaan qodista wax soo saarka beeraha iyo in la xoolayo maadaama ay xoolayo ka baxeen marka ugu horeysay Ilaahay baynu mahadnaqaynaa mar labaad waxaan halkan aan ka sheegayaa in dumar degan New Zealand inay ka soo direen $2,150 oo ay soo direen inay soo gaadhay waxaan kale oo iyagana aan sheegayaa Yaasimiin Maxamed Maxamuud oo iyaduna $500 ka soo dirtay Denmark dhammaantood waxaan leeyahay lacagtaas ay soo gaadhsiiseen Ilaahay ha idinka abaaliyo ajar ha idinka siiyo jannadana ha idinku horseedo qof waliba wixii uu eeba uga baahan yahayna in uu siiyayno eeba uga baryayna talabaad lacagta soo dirteen roobkii mar haddii uu daay biyo la helay raashin fara badanna dadka way haystaan maanta dadku waxay u baahan yihiin wixii beeraha lahaa oo dibidii ay ka dhammaatay xoolo ay u geeyaan saylada oo ay cagaf ugu qotaan aanay haynin in wixii dambe ee kaalmaa dadkoo dhanba waxaan ku baraarujinayaa in beeraha dadka loo qodo wixii beero lahaa wixii kalena neefaf adhiya
loo iibiyo oo lagu caawiyo oo kaalmadii dhinaca loo bedelo biyo waayo biyo maanta waa la hayaa raashinna waa ay buuxaan intaasaan dadka guud ahaan ugu baraarujinayaa qoladan soo dirteen waxaan leeyahay sidaan qaar kale horeba aanu beero qodis ugu bilownay intanna dadka ugu baahan ee jilicsan ee aan qodan karayn ayaa intii ay u gaadho aanu beeraha ugu qodi doonaa dhalinyarta wadajirka iyo waxqabadka ee Soomaaliland ayaa olole wacyigelin oo ku saabsan aafada taariikhda waxa ay ka bilaabeen qaar ka mid ah dugsiyada sare ee dalka faafahinta warkaasi waxaa loo diyaariyay waryaha Xamse Qurbaani dhalinyartan ayaa si wada jira u soo booqday dugsiga hoose dhexe Sheekh Bashiir ee magaalada Hargeysa iyagoo ka wacyigelinaya ardayda aafada taariikhda iyo dhibaatada ay ku leedahay dhalinyarada iyagoo dhammaantoodna xaqiijiyay in ay taariikhdu tahay masiibo ku habsatay dhalinyarada reer Soomaaliland ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay Xamse Cumar Kujoog oo ardayda u sheegay in dhalinyaro fara badan oo dalkeena u dhashay ay ku nafwaayeen wadanka badweynta militariumka ee u dhaxaysa Masar iyo Talyaaniga ubadkaygii walaalahay fariinta koobaad ee aan doonay inaan idinla wadaago waxa weeye qofka bani aadamka ah ee nool laba arrimood midun baa celiya ama diin baa celisa ama damiir baa celiya qofka bani aadamka ay haddii diinta ilaahay uu soo dejiyey uu sideeda u qaato wanaag buu ku noolaanayaa haddii damiirkiisa xaladee jidhkiisa iyo naftiisa ku jira uu raacana wanaag buu ku noolaanayaa tahriibka iyo qofku intuu dhulkiisa ka tago dhul kale u safro maadaama ay xaaraan tahay in qofka bani aadamka ahi uu safarka uu og yahay inuu ku dhimanayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraankiisa wuxuu ku sheegay walaa tulquu biaydiikum ila tahluka naftiina hagelinina maxay halaag waxa iyaguna halkaasi ka hadlay Sahrakiin iyo Cabdicasiis Ibraahim Ciise oo tilmaamay taariikhda in ay ka waantoobaan dhalinyaradu si ay dalkooga u aaminaan iyaga oo sheegay in fursado shaqo ay ka heli karaan wadankooga ma yahay maanta qof kasta inuu shaqadiisa wato shacab iyo dawladda waxay ahayd in barooriiq la sameeyo in tala qaran la iskaga yimaado laakiin waxa dhacay waxa igaga daran sida ayna cidna uga xumayn ee ayna talaabo uga qaadeen taasi kaliyaatay waxa ma tarayso intii tagtay waxa ka daran intaas joogta ee soo socota ee u diyaarka ah ee u baahan in la joojiyo tahriibo kaliya iyo waan ka xunnahay xal ma noqonayso runtii intii taagtayda ilaahay waan baryaynaa inuu masiibooyinka intii dhimatay oo naxariisto inta soo socotana ka badbaadiyo bilxaqiiqatan tahriibta iyo dhibaatadeeda in badan ayaa laynooga sheekeeyey in badanna waynu aragnay dhibka uu leeyahay boqolida dhul shisheeye aad baanu run ahaantii aan uga tiiraanyoonaynaa uga naxsannahay aad baanu uga baaqsannahay dhalinyarada naga baxday facayaga ahayd gabagabadii waxaa halkaasi ka hadashay maamulaha dugsiga Sheekh Bashiir Khadra Jaamac Aadan waxaana ay sheegtay sida ay uga xun yihiin dugsi ahaan dadkii ku nafwaayay doontii dhawaan ku haligantay militariumka u dhaxaysa Masar iyo Talyaaniga waxaan tiiraayo culus maxay hintay maanta aad iyo aad aan uga tiiraayoonaynaa anigoo ka mid ah haddana waalidiinta Soomaaliland doonta rugmatay maxay hintay dadka Soomaaliland oo dhan ay ku jireen 400 gaaraya ayaan ka tiiraayoonayna insha Allah waxaanu tacsi u diraynaa dadweynihii maxay hintay ku jiray dadkii dhalinyaradii wixii oo dhan waxaan u diraynaa tacsi tiiraanye leh ayaan u diraynaa dadka maanta maxay hintay waalidiinta caruurtooda ama bixiyaan ama ha joogaan be waxaan maxay hintay ku guubaabinaynaa inay caruurtooda kala dardaarmaan tahriibka iyo waayaha uu leeyahay Xamse Qurbaani iyo Maxamed Saleebaan Gaabane telefishinka qaranka Soomaaliland Hargeysa dadweynaha ku dhaqan deegaanka Ubaale oo ka tirsan degmadaasi Sanaxle ayaa la gaarsiiyay deeq raashin oo kala duwan Saleebaan Haybe Axmed ayaa warkaasi loo diyaariyay iyadoo jimciyadaha kala duwan ee islaamiga ay si ballaaran uga qayb qaateen gurmadka dad ku tabaaloobay abaarihii dhawaan ka dhacay jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa hay'adda dalka Kuwait ee magaceeda la yiraahdo Axyaa Turath
oo kaashanaysa jamciyatu racayatu muhaajiriin waxay 500 oo qoys oo ku dhaqan deegaanka Uubaale ee degmada Salaxley gobolka Muruujeex oo kamid ah dadka abaaruhu ay saameeyeen waxay u qaybiyeen raashin waxaana ugu horeyn qaybinta deeqdaasi raashinka 500 oo qoys ee ka hadlay gudoomiyaha wafdiga ka socda dowladda Kuwait ee Ihyaatu Turaat hogaaminaya Sheekh Jaasim العيناتي وشجعين وكون فرحسي هاي إماتك جمهورية الصومال وحنو ما نغي بالشدة كل قديان كاسي دولة الصومال لان نحن الحمد لله وصلنا إلى هذه المدينة مدينة المسجد المساجد واللي هي أوبالي والحمد لله وصلت الإغاثات نشكر الأخوة في حكومة على مساعدتنا وكذلك وسائل الإعلام والمسؤولين هنا كذلك في القرية والمحافظ كلكم نشكركم على مساعدتنا نسأل الله سبحانه وتعالى لنعكله waxaa isnaalkaasi ka hadlay Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Aw Cabdi oo kamid ah gudiga heer qaran ee abaaraha Soomaaliland waxaana uu maamulay wafdiga ballaaran ee ka soo dowladda Kuwait iyo waliba hay'adda Ihyaat Turaat ee ay mas'uul ka yihiin halkan waxaa lagu qaybiyay 500 qoys oo insha Allah waanu laba qoys siin doono dadku badan yahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa anigoo ka socda guddiga guud ee abaaraha ee qaranka aad baan u soo dhaweynaynaa walaalahayaga waxay raashinkan iyo macaawinana soo gaarsiiyay ilaahay khayr ha siiyo meel badan kale oo ku qaybiyeen waa mahadsantihiin shukran lakum waxaa isna halkaasi ka hadlay Cabdirashiid Macalin Muuse Maxamed oo kamid ah odayaasha deegaanka Uubaale oo u mahadnaqay dhammaanba cid kasta oo ka qayb qaadatay gurmadka abaaraha siiba xukuumadda Soomaaliland iyo waliba wafdiga ka socda dowladda Kuwait iyo hay'adda Ihyaat Turaat waxaa halkan ay soo gaarsiiyeen culimadii abaaraha guddiga abaaraha iyo culimada reer Kuwait جزاكم الله خير قاصدا بين سيرجكم بين سو غارسينا ugu tagaan 500 xaas ama 500 qoys inay qaataan oo aanu dibadeedna markii uma dibaatay aanu la kaashanay in loo kala jiido kun qoysi intii qoys loogu talagalay laba qoys ay u qaataan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa ka gudoonay gudoomid fiican baan ka gudoominay waa u ducaynaynaa gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha deegaankaas Uubaale ee degmada Salaxley Mustafa Sheekh Maxamuud oo soo dhaweeyay deeqdaasi raashinka ee lagu qabay dadkaasi 500 qoys gaaraya waxaana uu sheegay in dad ka tiro badan ay ku nool yihiin deegaankaasi balse isku filaysinayaan hada imaka halka dadka ugu timi waa ka gudoominay haddii ay tahay carabta keentay raashinka iyo haddii ay tahay guddigii qaranka waan idinka gudoominay alxamdulillahi rabbil caalamiin waa idinku mahadnaqaynaa sida aan la wada soconno hay'adda Ihyaat Turaat ee dowladda Kuwait muddooyinkii u dambeeyay waxay Soomaaliland ay ka qaybinaysay raashin tiro badan oo ay gaarsiisay qoysaska ku tabaaloobay abaarihii dhawaanka ka dhacay Jamhuuriyadda Soomaaliland deeqaashin ayaa la gaarsiiyay dadweynaha ku dhaqan deegaanada gobolka Hawd taasi oo ka koobnayd saliid sonkor daqiiq iyo bariis ayaa la gaarsiiyay in ka badan ilaa 400 oo qoys oo ku dhaqan deegaanadaasi deeqdan ayaa dadkaasi ay u fidisay hay'adda horumarinta bulshada ee Tanmiya ee la yiraahdo Social Development Organization isla markaasina uu maalgeliyay mu'asasada Sheekh Ciid Al-Khayriya ee dowladda Qatar ugu horreyn waxa halkaasi kaga hadlay deeqdaasi iyo dhinacyada gacanta ka geystay madaxa hay'addaasi Social Development Organization Sheekh Maxamed Salaad oo ku hadlaya magaca mu'asasada munadamadan tanmiya ijtimaaciya anigoo ku hadlayay mas'uuliyiinteedii runtii wax maanta aynu halkan ku qaybinaynaa sidii hore loo sheegay deeq raashina oo inaga soo gaadhay mu'asasada Sheekh Ciid bin Mohamed Al-Thani Al-Khayriya reer Qatar shacbiga reer Qatar xukuumadda iyo shacban waynu u ducaynaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu miisaanka xasanaadka uu u saaro cid kastoo gacan ka geysatay oo suuro gelisay barnaamijkaasna waa mahad celinaynaa deegaanka iyo maamulka intaba inta kadib deeqda raashinka ee halkan taala waxa ay munadamadu ama tanmiya runtii ay qayb ka tahay barnaamijkan ay kaga jawaabayso abaarahan ka dhacay Soomaaliland Sheekh Cabdiraxmaan iyo Sheekh Cumar oo iyagu ku hadlayay magaca hay'adaasi iyadu gargaarkaasi bixisay ayaa halkaasi ka hadlay deeqdan aad arkaysaan waa deeq ka kooban 25 kiilo bur ah 25 kiilo bariis ah iyo 25 kiilo sokor ah 6 litir oo saliid iyo 10 kiilo timir ah iyo gasac caana oo 2 kiilo bar ah loogu talagalay carruurta si ay u sii isticmaalaan inta ay xoolaha ka dararayaan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan nawaafajiyay in aan dadkan soo gaarsino dadka deegaankan deganna way mahadsan yihiin sida qiimaha badan
oo xilkasnimada ay noola shaqeeyeen. geesta kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hawd ayaa sheegay in deeqdani ay wax badan ka tari doonto baahida ka jirtay deegaanadaasi gaar ahaan dadka ay abaarihii dalka ka dhacay saameynta ku yeesheen. dadka iyagoo deeqdaasi la gaarsiiyey ayaa geestooda ka mahad celiyey isla markaasina sheegay in ay wax badan baahidoodii ka dabooli doonto. halkan waxaa loo joogaa hawl khayri ah hawsha khayriga ah oo ah raashin la siinayo dadkii ay abaaruhu ku dhufteen welina xilli adag ku jira dadkaasoo aanay abaar caadi ku dhufanin ay ku dhufatay 3 abaarood biyo la'aan baad la'aan dhulkiya iyo xoolihii noolaa noloshooda ku tiirsanaayo aan iib lahayn marka maanta qofkii 1 kiilo raashin siiya runtii waa qof aakhiro wax weyn ka heli doona insha Allah billahi kariim sida ilaahay ka rajaynayno waa qof abaal dadku hayn doonaan waxaan u mahadnaqayaa cid kastoo gacan ka geysatay mashruucan iyo raashinka maanta lagu qoodinayo 400 oo la siin doono raashin isku dhammaystiran oo ah raashinkii daruuriyaadka ahaa oo ay u dheer tahay raashinkii nafaqada ee timirta. waa Cali Axmed Cawaale iyo Muxyidiin Maxamed Daahir telefishinka qaranka gobolka Hawd. warkii oo khiyaarta qiimaynta qadarinta iyo xushmada badan ee hawada lagala xidhay kala socoteen xarunta guud ee telefishinka qaranka Soomaaliland uu ku leeyahay magaalada Hargeysa oo naga intaasi waad ku mahadsantihiin sida qiimaha iyo sharafta la socotaan daa'imaha kala duwan ee telefishinka qaranka Soomaaliland. warkan war lamid ah inta ku kulmi doono waa Axmed Saki Daar Xasan iyo khiyaartii kala duwan ee gala qayb qaadatay oo dhamaantood ku dhaafaya. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.